جيل الصحابة فعي صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفع رنتي علماء واحد جيل فريد وفح كجد سنة الله شدتك صوم رودا ولذلك علماء التاريخ ركم مد واحد المامان جيل الصحابة هرتودنا وحلم إذا لما أرك بيد هذا قداشودنا وحلم إذا لما أرك waxaana la tilmaamay ilaa qiyaamu saac uu dhacona cid la noociin aanay soo maraynin jiilkani muxuu dadka kale kaga gadisan yahay koo waa jiil intiisa ugu badan tilmaamo ay ka siman yihiin le waa bulsho dhan oo tilmaamo ka siman hadday tahay caqiidadooda saafiya hadday tahay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda dhammaystiran hadday tahay ammaanada diinta iyo siday u xambaareen ay u soo gudbiyeen hadday tahay qalbigooda iyo saafinimadiisa hadday tahay go'aan qaadashadooda iyo wanaagooda hadday tahay jihaadka islaamka u galeen waa koox baa la yidhaahdaa halkay ka gaadhay diinta aan cidi ka gaadhin waxaa la yidhaahdaa kooxdaasi ama ummaddaasi saxaabada ahayd fardi ka mida hadduu taariikhda kala soo maro qof ka midi taariikhda waqtiga waa la buunbuunin lahaa jiilku qofkaasi la noolaa maalan cumar bin alkhataab hadduu casri dambe soo bixi lahaa isagoo cumara waxaa la hubaa in taariikhda ay tilmaamaan lahayd waqtigii uu cumar dunida hogaaminayay isagoo aan saxaabi ahayn waxaa la mida bay leeyihin maalan dagaalyahanadu haddii khaalid soo bixi lahaa ama qacqaac ibnu camr soo bixi lahaa ama ragga la noocuu soo bixi lahaa idan waa koox ka gadisan bay leeyihiin dunida kooxaha soo maray oo dhan marka loo eego ballac ahaan intay tiradoodu leegtay iyo marka kor loo eego qiimadooda inta ay gaadhsiisan tahay jiilu saxaaba muxuu ku mudan yahay markaa waxay yidhahdaan waa fac taariikhda ku suntan muxuu ku suntan yahay kow cinda almuslimiin qiimayn gaara buu leeyahay cinda culamaa'i taariikh qiimayn gaara buu leeyahay bale waxay culimadu leeyihiin cinda allaahi subxaanahu wa tacaala buu qiimayn gaara leeyahay waa kooxda qura ee la tilmaami karo ilaahay agtiisa waxay ka yihiin dadka inta soo hadhoo dhan waxaad odhan kartaa axsabuhu walaa uzakiiha cala allaahi axada hebel waxaan u malaynaya waa nin fiican dadkaasi waa reer fiican jiilkaasi waa jiil fiican ilaahayna cidna u ammaani maynaad odhanaysaa ama jiilu saxaaba kuwa maaha iyaga lama yidhaahdo walaa uzakiiha cala allaahi axadan jiilu saxaaba ilaahay baa taskiyeeyey waa kooxda qura inay dad fiican ahaayeen rabu samaawaati walardi uu ka markhaati kacay walidaalik maalan haddaynu tusaalayaal qaadanno ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay laqad radya allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima ma fii quluubihim faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay baa raalli ka noqday mu'miniintu markay geedka hoostiisa kugula beectamayeen dadkan la leeyahay raallaa laga noqday ummadad intee le 1400 oo nin bay ahaayeen 1400 oo saxaabo meel taagan ayaa ilaahay hadlaya subxaanahu wa tacaala markaasuu leeyahay kuwa ilaahay baa raalli ka noqday waa shahaada min allahi subxaanahu wa tacaala innagu dadka markaynu qiimaynayno waxaynu ku qiimaynaa muuqaalkiisa qofka ama cibaadadaynu ka aragno deeqda aynu ka aragno tala fiicnida aynu ka aragno ama qulubtooda dadka ma ogin iyo waxa u qarsoon qoladan se ilaahay muxuu leeyahay facalima maa fii quluubihim baa ilaahay leeyahay iyaga maaha daahirkoodaba wax la qiimaynaya ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ogahay waxa ku jira qalbiyadooda sidaa awgeed baa faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba waxaa la mida markaynu eegno fii suurati tawba إلهي وحلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم إلهي واكتوبة أقبل إبال لي نبيك يا مهاجرينتي يا أنصارتي راعي نبيك وقتي أتكاي عسلان نبيك الراعي waqti ay u dhowaatay dadka barkood quluubtoodu inay weecato oo dabeetana ilaahay sugay
dadka caynkan lagu sifaynaya waa kuwa ma waa ghaswatu tabuuk raggii galay tabuuk yaa galay 30,000 maaha qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 maaha waa 30,000 30,000 ciidanoo meel galay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya kuwa ilaahay toobadooda u aqbalay idan jiilkani ama facakani waxay dad oo dhan kaga gedisan yihiin baynu leenahay oo taariikhda ugu suntan yihiin waa dad miisaankooday alle ku leeyihiin agtiisaa la garanayaa maaha cinda albashar cinda allahi subxaanahu wa tacaala qiimaynta ay ku leeyihiin iyo waxay ka mudan yihiin baa la garan karaa ama wixii iyaga ka dambeeyey waynu odhan karnaa dadkaasi dad fiican bay ahaayeen ilaahay baa si xaqiiqadooda og adigu waad qiimayn kartaa qiimayntaada waxaad isku dududo waad tilmaamaysaa laakiin dee lama mid aha kuwa ilaahay iyo rasuulkiisii qiimeeyeen cid aad odhan karto jannay gelaysaa ma jirto dee kuwii ilaahay iyo rasuulkiisu iyagoo dhulka kor socda layidhi jannaa gelaysaan mooyaane